iyadoo magaalada Boorama ay sanadii u dambeysay ay ahayd mid uu kacayo quruxda iyo bilicda magaalada isla markaana ay noqotay mid loo soo dalxiis tago iyadoo ay socoto jidka wadada isku xiraysa jaamacadda Camidigeeda diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa waxa maanta wadada ka warbixiyay xagga hawluhu socdaan madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Nawdal hadaba waxa uu goorantii halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee magaalada Boorama mudane Maxamed Cabdi Xaashi Xamari isagoo ku dheeraaday mashaariicda kala duwan ee ka degmada Boorama sheeganay mashaariic kala duwan ay bilaabayaan bilaha soo socda haadkiiba isku dhaafaan laba baabuur intaana waxa weeyaan waa wax qabadka maamulka cusub ee maaragta degmada Boorama iyo fikirka cusub ee dhalinyarada caafimaadka qabtay ay ku soo kordhiyeen wax qabadyada degmada ka socda in dadweynaha iyagana dadaalkooda contribution bay socdaan waxaan doonaynaa dadweynuhu in ay wax qabadkan maanta yaani socdo ee Boorama ka socday waxa weeyaan sanadkan gudihiisana waxa noo qorshaysan wadada Hargeysa ka timaada ee dhakhtarka hormarta ee ilaa guriga martida tagtay iyadna 2 kiiloomitir bar kalena inaan July ama bisha 8aad haday ugu dambayso insha Allah inay noo suurto gasho shaqaalina wadadan halkan jidcadaha ee laamigu maro 1 kiiloomitir baa nooga qorshaysan isla bishan June ama July isna inaanu ka fulino maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadii iyo maayir ku-xigeenka degmada Boorama Maxamed Faarax Dheeresto oo yagna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen jira guriga loo dhisayay iyaduna waxa weeyaan guul waad arkaysaan maanta iyaduna wadadii ugu weyneed ee jidkii wadnaha ayaanu maanta la dhigayaa daamkii baa runtii ka hadlay oo si khaldan uga hadlay waxaan idin sheegaynaa meeshaan ugu talagalna waa horumarkaas oo kale ninka gurigiisa dhamaystirmay waar jajabka yar ka soo hadhay haddii aanu ummadda wax ugu qabanno madambiba taasaanu doonaynaa inaan ka hor qaadno bilicda magaalada waxbay ka taraysaa bulshada indhihiinaad wax ku arkaysaa maanta leedahay waxaan anaguna doonaynaa waxa weeye inaad contribution-kii diyaar la soo noqotaan meel walba oo laga qabanayo haddii aan contribution jirinna de waxay noqonaysaa in wixii mala awaaliyo noqdo waxaan la lahayn dawladda oo inta adeeganaysan ama ay dawranaysaan ay yaraato ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay barsaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayir isagoo ka sheekay isla markaana carabka ku dhuftay mashaariicda kala duwan ee gobolka ka socda ay dhalintii ay soo doorteen ay ku dadaalayaan inay horumariyaan gobolkooda iyo degmadooda waxaan leeyahay kuwa qurbaa jooga ee jecel wanaaga ee jecel horumarka dalkoodii ee jecel horumarka gobolkoodii ee jecel caasimadii Boorama jecel in bilicdeedu iyo quruxdeedu ay muuqdaan kala qayb gala golaha deegaanka la soo doortay si kastaba ahaatee wadadan ay wadaan maamulka dawladda hoose ayaa wax weyn ka tari doona isku socodka ama se gaadhiyaasha u kala goosha daafaha magaalada Boorama balse waxa xusid mudan in gobolka Awdal uu caan ku yahay isla markaana lagu xusuusto hoyga tacliinta Soomaaliyeed hadaba bulshada gobolka Awdal waxay u tafaxayteen isla markaana u xarka xidheen sidii ay gobolkooda u gaarsiin lahaayeen horumar isla markaana la tartami lahaayeen gobolada kale ee Soomaaliland Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare telefishinka Rayo gudaha magaalada Boorama